wala lacagta ujeedo waa $5 iyo 2.50 senti waxaan kasoo dirsaday Gifi social application-kii hore lacagtana ujeedana waa 14.20 rubi waxaan kasoo dirsaday website-kii hadda aan sharxay Afiso. السلام عليكم صاحبي isku soo noqod wanaagsan walaal hadii ay tahay booqashaad ugu horeysana soo booqatay waxaan ka codsanayaa meesha qorantay subscribe taawo gambaralkana furosay kugu soo dhacaan waxbaan soo dhignay si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya markasta mahadsanid. A few moments later. saaxiibayaal maanta waxaan hayaa website aad ka shaqaysan kartaan maalintii $5 weekina aad ka shaqaysan karto $35 website-kan aniga ayaa soo tijaabiyay 100% waa run waxaan soo tijaabiyayna ayuun baan kula iman doonaa wax kale kula ma iman doono website-kan linkigiisa waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka ama muuqaalka hoostiisa sida u taqaan ayaad ku dhufan doontaa linkiga yaala website-kan intaad galin ka hor waxaa muhiim ah inuu mobilka kuugu jiro Google Translate haddii aanu walaal mobilka kuugu degsanin Google Translate waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store-ka ama App Store-ka adigoo ku qaraya Google Translate. bishaaro ma tahay qof raadinaya YouTube channel oo iiba waxaan ku haynaa YouTube channel oo iiba walaal haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka muuqaalka hoostiisa ku qoran. A few moments later. sidoo kale waxaa banaan fursad shaqo oo online adiga oo sariirtaada jiifaa gurigaaga jooga aad ka shaqayn karto aad waxba qabanin kaliya waxaa kaa xigto shaqadaas inaad ka qayb gasho lambarka muuqaalka hoostiisa ku qoran la xiriir haddii aad u baahan tahay shaqada online. linkiga videoga hoostiisa yaala markii aad ku dhufato sidan ayuu ku keeni doonaa sidan markuu ku keeno imika waxa saaran Russian language ayaa saaran oo website-kan waxa laga leeyahay wadanka Ruushka website-yada badan lacagta runta bixiya waxa laga leeyahay wadanka Ruushka meesha sare ayaan ku dhufan doonaa si aan imika luqadda Russia uga saaro aan ku bedelo luqad English ama adiga halka hoose ayuu ku soo dhigi doonaa mobile haddii aad wadato Android haddii aad iPhone wadato sidan ayuu ku soo saari doonaa ama halka hoose ayaad ka fiirin doontaa aniga meeshan ayuu isoo saaray from Russia to English Russian ayaa lagu turjumayaa luqad English waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay translate ka English buu noogu turjumay website-kan wuxuu shaqeynayay 3 sano iyo 10 bilood iyo 12 cisho halkan qoraalka ku qoran iyaga ayaa isku faahfaahin doona wuxuu ku leeyahay qalabkani ama website-kani waa laga maarmaan inaad ku xayeysiisato oo ganacsigaaga aad kor u qaadato haddii aad tahay YouTuber oo views-kaaga hooseeyo website-kan ayaad ku promotion garaysan kartaa si ay dad yo badan maalintii ku soo booqdaan website-kan hadhow ayaan ku tusin doonaa sababaha lacagta looga sameeyo waxaan waa interface weeyaan waan iska dhaafi doonaa si aad website-kan uga qayb noqoto aad ka shaqaysato waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay registration si aad isku diiwaan geliso page noocan ayuu ku keeni doonaa waxaa lagugu yiri login must be from 3 to 15 characteristic waxaa lagugu yiri 3 xaraf ama 5 iyo 10 xaraf ayaad xagga ku qoraysaa aniga for example ahaan waxaan ku qorayaa walaal magacaaga marka sidaa ku qorto 3 xaraf ama 5 iyo 10 xaraf ayaad ku qori doontaa meesha ku xigta your current email gmail-kaaga ayaad halka gelin doontaa aniga gmail-kaygii ayaan soo gelinayaa gmail-kaaga marka saa u soo geliso create password buu leeyahay wuxuu ku yiri password must be at least 6 characteristic password-kaagu waa inuu ahaadaa 6 xaraf haddii kale password-ka ayuu kugu qabsan doonaan qofkii kugu casuumayo halka ku soo dhigi doonaa hadhow markaad password-ka 6 xaraf ka dhigto magacana aad 3 ama 5 iyo 10 aad ka dhigto aad gmail-kaaga geliso waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay register wuxuu ku leeyahay congratulations you have successfully registered walaal markuu ku soo qoro congratulations you have been registered waa ku hambalyeynaa si fiican aad isku diiwaan gelisay waad ka soo bixi doontaa waxaad iman doontaa gmail-kaaga markaad timaado fariin noocan ay kugu soo dirayaan Afiso BS ka socota luqad Russian baa saaran adiga meeshan ku calaamadiyay ayaad ku dhufan doontaa hadhow aniga hadda waan soo verify gareeyay meesha ayaad ku dhufan doontaa si aad u soo verify gareyso walaal markii aan ku soo dhuftay settings-ka oo halkan ayuu keenay wuxuu leeyahay email verified oo email-kaagii waa la verify gareeyay walaal website-ka markaad samaysato oo sidan kuugu furmo waxaa laga rabaa inaad soo buuxisid profile-kaaga kuma ayaa tahay sanadkee dhalatay iyo waxaas ayaa lagu weydiin doonaa inaad ka jawaabto ayaa fiican waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran calaamadda ay ku qoran tahay calaamadaas markii aad ku dhufato waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay settings si aad u soo buuxisid sidan ayuu kugu soo saarayaa lambarkaaga inaad gelisid ayaa laga rabaa iyo magacaaga iyo qofka tahay iyo dhalashadaada kadib waxaa ku dhufanaysaa hadhow meesha ku qoran tahay save
aniga for example ahaan ayaan kugu tusayaa lambarkaaga waa meesha waa usoo noqonayna lambarka horta meeshan magacaaga ayay ku qoraysaa. aniga for example ahaan kii hore ayuu maahir igu qornaa kan maxamed ayaan ku qorayaa. magacaaga marka sidaa lagu dhaho aad ku qortid my flower meesha ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. women iyo male kaa tahay ayaad daaranaysaa. women waxa weeye naag baan ahay, malena nin baan ahay. aniga imka nin baan ahay, male meesha ku qorantaan taabanaya. halkana dhalashada, taariikhda dhalashada, maalinta dhalatay bishan waxaad ka dhigtaa February sanadkana 1999. aniga for example ahaan weeyaan adiga sanadkaaga saxda ayaad ku qori doontaa. walaal sida lambarkaaga u verify garaysid waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay confirm. haddii aad verify garayn weydo oo lacag laguguma soo diraayo waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay confirm. waxaa lagugu yidhi halkaa lambarkaaga ku qor, laakiin way kaala soo daahayaan kuma soo dirayaan. to get the code meesha ku qoran tahay meel ka hooseysa intivation via telegram meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa. telegram haddaanu kuu samaysnayn samayso walaal, meesha hoose ayaad ku dhufan doontaa. kadib wuxuu kuleeyahay go to the telegram ka tag ayuu kuleeyahay go to the telegram meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa walaal. telegram page-kooda ayuu ku gey doonaa, waxaad kusii dhufan doontaa. aniga haddana waa aan la hadlay markii hore, adiga page cusub ayay kusoo saarayaan oo waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay start oo hoose. start markii aad ku dhufato waxan bay kusoo dirayaan, waa afraashiyan weeyaan. meeshaas ayaa kusii dhufanaysaa oo waxay kuleeyihin shore your phone number, lambarkaaga noo soo share garay. okay meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa walaal. way kuusoo jawaabi doonaan, way ku verify garay doonaan insha allah. lambarkaaga markaad ku dirto waad sugi doontaa, iyaga ayaa ku verify garay doona walaal. ilaa hadda nooma soo jawaabin adiga, ilaa hadda way kusoo jawaabi doonaan. markaad shaqaysa ku noqon doontaa, haddana lambarka ayaa soo verify garay doontaa. hadda waxaa ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay safe oo waan kasii soconaynaa. waxaa ku dhufanaysaa saa usoo gelisid akoonkay lacagta lagugu diri lahaa walaal. finance meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa. finance markaad ku dhufato web money miyaad lacagta lagugu dirayaa, adfakash miyaa lagugu dirayaa, u money miyaa lagugu dirayaa, mise bayir, mise perfect money, mise bitcoin. anagu walaal inta badan website-yada waxaan ku sharaxnaa bayir iyo perfect money. bayirkayga ayaan halkaa gelinayaa walaal. walaal bayir akoonkaaga markii aad halkaa geliso xagga sare ayaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay request pin. gmail-kaaga ayaa lambarkood yar lagugu soo diri doonaa, meeshan ayaad gelin doontaa. kadibna waxaad dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay safe. annagu waxaan dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay request pin sida koodkiina loogu soo diro. okay walaal waxay yidhaahdeen koodkii waxaan kugu dirnay gmail-kaaga, waxaan tagaysaa gmail-kii. koodkii ayaad soo qori doontaa. binki ayaan soo koobiyan doonaa walaal oo waan soo gelin doonaa binki. binkii waa soo noqon doontaa, meesha binkood ku jirto ayaad gelin doontaa. kadibna waxaad taaban doontaa hadhow safe meesha ku qoran tahay walaal. waka walaal waa ujeedaa sax baa la saaray bayirkii. haddii aad perfect isticmaashana perfect manigaaga akoonkaaga ID-gaaga ayaad halkaa gelin doontaa. sax bayna saareen, waan kasii socon doonaa. iminkana san waxaa tegaynaa meesha ku qoran tahay social networks, sida waxaa ku shaqeyn lahayd aad usoo geliso. kadibna shaqadiibaa kusii xigta walaal. waxaa lagu yiri link your YouTube channel, linkiga YouTube-ka channelka soo geli ayaa lagu yiri sidaad u shaqeyso walaal. meeshaas ayaad ku dhufan doontaa walaal. walaal gmail ayuu kusoo saari doonaa. gmail-ka aad YouTube-ka ku isticmaasho ayaad gelin doontaa walaal. walaal YouTube-kaagii waa aad soo gelisay. saan u xaqiijino social networks waxaa lagugu yiri YouTube-kaagii waa soo noqon doontaa, waxaad tegi doontaa social networks si aad u xaqiijisid YouTube-kaagii waad soo gelisay baa lagugu yiri. haatan shaqadaada waad bilaaban kartaa walaal. page noocan markuu kusoo saaro website-kani waxaad kaga shaqaysan kartaa 4 qaabood. qaabka koowaad ayuu wuxuu noqonayaa inaad website-ya aad booqato. qaabka labaadna waxuu noqonayaa inaad YouTube daawato oo subscribe usoo saartay iyo like. qaabka saddexaad ayuu wuxuu noqonayaa su-aal ayaa lagu weydiinayaa. su-aala ayaa lagu weydiinayaa, waad ka jawaabi doontaa oo lacag baad ku qaadan doontaa. qaabka afraad ugu dambeeya waxuu noqon doonaa referral linkigaaga ayaad asxaabtaada u diri doontaa. qofka iska soo diiwaangeliya lacag ayaad ku heli doontaa. dabcan taa ayaa fudud, aniga badanaa taas ayaan ku shaqaystaa referral linkiga. haddii aan u gudagalno qaabka koowaad aan kusoo sheegay website la booqanayo waa sarfin meesha ay ku qoran tahay. sarfin meesha ay ku qoran tahay aad ku dhufan doontaa. waxaa lagu yiri 15 second ayay saacadu socon doontaa. waxaad soo qaadanaysaa 14 rubi. website-kan lacagta uu bixiyo waa rubi weeyaan. hadhow tola adiga ayaa u bedelan doona dollar.
kan labaad haddaan kuusii eego waa 14 rubi 0.014 rubi ayaad soo qaadan doontaa. For example ahaan kan koowaad ayaan kugu tusi doonaa oo adiga sidaas ayaad u shaqayn doontaa. waxaad ku dhufanaysaa qoraalkaasi markaad ku dhufato wuxuu kuusoo saarayaa ama kuusoo qabanayaa start watching. meesha ku qoran tahay ayaad kusii dhufan doontaa. hadhow website ayaa lagu geyn doonaa oo waqti ayuu kuusoo qaban doonaa. waqtigaasi markuu dhamaado ayaad lacagtaada heli doontaa. dabcan waad aragtaa inay saacadda socoto 8 7 6 5 4 3 2 1. wakaa saacaddii markay dhamaato meeshaas ayaad ku dhifan doontaa sida lacagta usoo qaadatid. wakaa 14 rubi ayaad soo qaadatay waad kasoo noqon doontaa oo websitekaagii ayaad kusoo noqon doontaa. wuxuu kuleeyahay taken into the accountkaagii ayaa lagu diray lagu yiri 14 rubi. waxaan oo dhan markaad kasoo wada qaadato lacagtaada refresh ayaad ku dhifan doontaa. lacagtaada automatically ayay kugu geli doontaa account-kaaga. waxaan oo dhan waad soo wada daawan doontaa. walaal website-yada markaad booqatid oo lacagta aad kasoo qaadatid meesha labaad aa imaanaysaa ay ku qoran tahay letters. su-aalo ayaad ka jawaabi doontaa si saxa. su-aalaha haddii aad uga jawaabto walaal lacagtaada waad ku guuleysan doontaa. walaal aynu isla eegno letters ayaad ku dhufan doontaa. walaal letters markii aad ku dhufato su-aasha koowaad waxaa dul saaran 20 rubi. su-aasha labaadna 20 rubi. ta saddexaad 20 rubi. waxaan oo su-aalaha oo dhan waad kasoo qaadan doontaa lacagta oo si sax ayaad uga jawaabi doontaa walaal adiga oo ku dhufanaya meesha sare ee buluuga. kadib start reading meesha ku qoran tahay aad ku dhufan doontaa. haddii aad dabcan aad af Englishka aad fahmayso ama aad xoogaa ka garanayso ama haddii aad wada taqaano su-aalaha ka wada jawaab. su-aasha sidan ayaa lagu weydiin doonaa what is the job baa lagugu yiri. xagga sare ayaad soo akhrisan doontaa. markii aad soo akhrisato saddexdan option ayaad ka dooran doontaa midii xagga sare lagu soo sheegay. jawaabtu kuma jirto. su-aashan jawaabteedu meelaha uma doonanaysid oo su-aasha ayay ku dhex jirtaa. su-aasha akhri si fiican uga jawaab kadib lacagtaada kasoo qaada walaal. kan koowaad kan labaad kan saddexaad afraad shanaad ilaa waxaan oo dhan waa lacaga weeyaan waa 20 rubi. lacagta waa kasoo wada qaadan doontaa adiga oo ku dhufanaya meesha. kadibna hadda waxaad kusii dhufanaysaa start reading. haddana meesha start reading kadib kasoo wada jawaab lacagta kasoo qaado. walaal haddana qodobka saddexaad waxa weeyaan YouTube meesha ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. walaal meesha YouTube-ka markaad ku dhufato page noocan ayuu isku soo saari doonaa. fiidiyoyadan oo dhan ayaad daawan doontaa walaal oo waxaa kasoo qaadan doontaa 21 rubi 16 rubi 21 rubi 21 rubi. waxaan lacagaha meesha ku qoran oo dhan ayaad kasoo qaadan doontaa walaal kaliya adigoo ku dhufanaya watch the video. get started baa hadhow kusii dhufan doontaa meesha ku qoran tahay. kan labaadna waxaa ku dhufanaysaa watch the video. walaal waxaan oo dhan markaa ku dhufato asaa ugu dhufato get started meesha ku qoran tahay aad soo daawanaysaa sida lacagta usoo qaadato. kan koowaad ayaan for example ahaan kugu tusi doonaa oo waxaan oo dhan haddaan daawado waqtiga ayaa iga dhamaanayo waqtiga ayaa igu socdaa. marka get started ayaa ku dhufan doontaa. kan koowaad ayaan for example ahaan kugu sii doonaa walaal page nooc kale ayuu ku geyn doonaa. YouTube-ka ayaa ku dhufan doontaa si aad usoo daawatid walaal. 15 second ayaa lagu qabtay iyo 10 second oo kaliya. saacad badan haddaad aragto lacagta waa ay badan tahay. saacadba saacaday ka badan tahay lacag badan ayaad qaadanaysaa walaal. saacadna saacaday ka yar tahay waa lacag yar weeyaan walaal. 8 7 6 saacadaasi markay dhamaato waad kasoo noqon doontaa oo waxaad kusoo laaban doontaa Afiso website-kii. wakaa walaal 21 senti baan kasoo qaadanay. ayaa lagu daray 21 rubi. kan labaadna saa ayaad u daawan doontaan. kan saddexaad kan afraad kaliya waxaa ku dhufanaysaa meeshaas ayaad ku dhufanaysaa. meesha markii aad ku dhufato kadibna get started meesha ku qoran tahay ayaad kusii dhufan doontaa walaal. waxaan oo dhan aday ku sugayaan soo wada daawo. 10 second kaliya ama 15 second kaliya ayaa daawanaysaa adigoo waxba qaban. maalintii waxaa ka samayn kartaa 300 oo rubi. 300 oo rubina waxay u dhigantaa waa $5. wiigiina waxaad ka samayn kartaa $35 haddii 5 lagu dhufto 7. wiigiina waa 7 haddii 5 lagu dhufto 7 waa $35. kaliya waxaa samayn kartaa $35 wiigii ama isbuuc gudahooda. website-kan markaa laga faa'iideysto. waxaan oo dhan adiga ay ku sugayaan soo wada daawo. walaal meesha ugu dambeysa waxa weeyaan waa meesha ugu lacagta badan. referral linkigaaga ayaad dadka u diraysaa. qof walba oo iska diiwaangeliya lacag ayaad ku helaysaa walaal. haddii aad dad badan aad baraha bulshada ku leedahay u dir. haddii aad si qof haddaad maanta u dirto hal qof ula soo dego lacag ayaad ku helaysaa walaal. laakiin maadaama ay fiican tahay dad badan haddii kugu xidhan yihiin ka faa'iideyso oo linkigaaga u dir. lacag badan ayaad sameynaysaa. dad yar haddii kugu xidhan yihiin lacag yar ayaad sameynaysaa. qofkun bay ku xidhan tahay. waxaad imaanaysaa sida referral linkigaaga asxaabtaada ugu dirto. referral system meesha ku qoran tahay ayaad imaan doontaa ayaad ku dhufan doontaa walaal. referral linkiga walaal markii aad ku dhufato waxyaabahan ayuu kusoo saarayaa. waxaad ku dhufanaysaa promotional materials meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa walaal si aad usoo koobiyeyso referral linkigaaga asxaabtaada aad ugu dirto. walaal promotional materials markaad ku dhufato page noocan ayuu kusoo saari doonaa. afiso.akw ka magacaagii ayaad
koobi dhihi doontaa oo asxaabtaada ayaad u diri doontaa ama gruubyaad ku share garan doontaa qofkii website-ka yani qofkii magacaaga iska diiwaangeliya lacag ayaad ku helaysaa saasaad u taabanaysaa kadib koobi meesha ku qoranta ayaad ku dhufanaysaa oo asxaabtaada ayaad u diraysaa walaal qoraalkan xagga sare waxay ku leeyihiin use official professional materials to attract new referrals to increase your earnings macnaha waxaa lagu yiri waxaad isticmaashaa referral linkigaaga isticmaal si aad usoo jiidato dadyo cusub baa lagu yiri sidoo u kordhaya lagugu yiri lacagtaada waxaa lagugu yiri the more referrals the more your income macnaha waxaa lagugu yiri referralkaaga hadduu bato lacagtaada way badanaysaa haatanna walaal waxaan ku tusi doonaa lacagtii aan ka sameeyey 03 rubi ayaa ku jira waxaan kugula talinayaa lacagta markay ku gaadho $1 iyo wixii ka badan ayaa la bixi kartaa boqolkii rubi waa dabcan $1 iyo wax la jiro iyo 200 rubi 300 rubi markaad marayso kaliya la baxdiga walaal haddii aad ogaatid lacagtaad shaqaysay intay dollar ahaan u dhigmaysa haddaad doonaysid inaad ogaatid meeshan ayaad waxaad ku qoraysaa rub to USD intaas ayaad ku qoraysaa kadib gowin walaal intaa markaas ku qorto saan ayuu kugu soo bixi doonaa halkii rubi waa 0.018 adiga ka soo qaad markay ku gaarto 100 rubi wixii ka badan la baxa boqolka rubi waa $1 iyo 67 waa $2 oo in yar dhiman 200 rubina waa imisa waa $3 300 rubi waa $5 walaal 300 rubi waa $5 weeyaan 5 hadii 7 lagu dhuftan waa $35 maalintii kaliya 24 hours aad daawanayso video 7 second kaliya adigoo daawanaya halkii saacadood waxaad sameyn kartaa ilaa 90 ilaa 100 rubi ayaa sameyn kartaa maalintiina 300 rubi ayaa sameyn doontaa weekina waxaad sameyn kartaa walaal ama isbuucii $35 marka laga faa'iideysto website-kan haatanna walaal waxaan ku tusi doonaa lacagtii aan ka sameeyey walaal lacagta ujeedo waa $5 iyo 2.50 senti waxaan kasoo dirsaday Gifi social application-kii hore lacagtana ujeedana waa 14.20 rubi waxaan kasoo dirsaday website-kii hadda aan sharxayo Afiso ayaan kasoo dirsaday oo 15 rubi ayaan kasoo dirsaday inta iyaga ayaa jartay haatan waxaad ujeedaa 14.20 rubi inay ku jirto iyaga ayaa ii soo direen marka website-kan waa taa cadeyntiisa waa real ah laga faa'iideysto lacagtan waxaan u sameeynayaa macnaha tijaab ahaan ayaan u sameeynayaa maanta kadib ayaan ka shaqaysan doonaa adigana ka shaqayso walaal